addoon waa u nicmo badan yahay isagu sulaymaan waana awaab baa la yidhi mid soo noqosho badan cagsigiisa waxaa ilaahay tilmaamayaa nebi kale oo imtixaan xanuun iyo dhib lagu imtixaamay oo qur-aanku aanu wax kaleba ka sheegin dhibtii soo gaadhay mooyaane nebiyullaahi ayuub meel kastoo qur-aanka ayuub uu ku qoran yahay inta badan waxaa laga warramayaa uun imtixaankii ku dhacay axaadiista sunnaduna waxay tilmaamaysaa 18 sano inuu bukay oo imtixaankaasi ku jiray isna wuu sabray wixii laga rabay qolada hore shaakiriin bay ahaayeen waqaliilun min cibaadiya shukuur baa ilaahay qisadooda ku tilmaamaya dabeetana nicma alcabdu innahu awaab baa lagu tilmaamay isna wuu sabray inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu innahu awaab baa isna ilaahay yidhi waxaanu hellay isagoo mid sabraya ah nicma alcabdu innahu awaab idan labada imtixaankaa doonto gal kii kastoo kaa soo horbaxa waxaa lagaa rabaa inaad xaqiijiso derajada ah nicma alcabdu innahu awaab haddii faqri iyo gaajo iyo amni darro iyo dhibi ku soo marto inaad sabirtaa loo baahan yahay ilaa aad ka gaadhaysa nicma alcabdu innahu awaab haddii magac iyo maamuus iyo xoolo iyo sulto iyo waxaana ku soo maranayana imtixaan kale un inaad shukri noqdo abaalkeed marisaa baa lagaa rabaa ilaa aad ka gaadhaysa mansilada ah nicma alcabdu innahu awaab idan waxaan leenahay dunidu aynu ku nool lahay waa imtixaan gebigeedba nabluukum bishari waalkhayr bay taagantay ambiyaduna waa dadka ugu badan ee imtixaanka la geliyey ee nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay ambiyada imtixaanaadka oo dhammi soo mareen isagoo laga xoog badan yahay oo saxaabadiisa hortiisa lagu tumayo lagu garaacayo wuu soo maray isagoo xoog badan oo sulta iyo power haysto dawladdiisu xoog badantay oo dadku afwaajan diinta u soo gelaya wuu soo maray waxay yidhahdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxamedi imtixaanaadka dhammaantood wuu soo maray ay imtixaan aad sheegata bay leeyihin haddaad siirada nebi moxamed akhrido waad ku arkaysaa wax u dhigma ay imtixaan bini aadam uu sheegtana qur-aanku taariikhda uu ka warramaya ambiyada waad ku dhex arkaysaa maalan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam fitnatu lqariib buu soo maray dadkii u dhowaayoo lagu imtixaamay isagoo rasuulah oo ilaahay soo diray oo dadka khayr u sheegaya ayaa dadka kuwii ugu dhowaa beeniyeen abujahl iyo abulahab iyo quraysh iyo tolkii ugu dhowaa adigoo wanaag sheegayoo lagu leeyahy waa kadaab waa beenaale ama waa saaxir ama waa caynkan lagugu tilmaamayo ilaa xad intay daba galaan adeerkii uu daba socdo oo markuu is idhaahdo cid la hadal uu idhaahdo anaa wiilkan adeerkiiyo waxba ma oga waa sixirroole iska dhaafa haddii adeerkaa ku daba galo bal adgu qiyaas adeerkaayoo aabbahaa la dhashay oo kaa weyn hadduu ku daba socdo oo midhkaad sheegtaba cagsigeeda uu sheegayo uu leeyahy ka yar annagaa dhalayoo waa adeer baanu ahay waxna kama jiraan waxa uu sheegayo yacni cidhidhigaad dareemi lahayd intuu leekaanaya kii kuugu dhowaa markuu xadkaa iska kaa taago ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo dejiyey qur-aanka markaa laynoogu tilmaamayaa imtixaanaadkaasi wax lagaga gudbo oo ay ka mid tahay inuu qalbiga bini aadamku cidhidhigaasi aanu dareemin cidhidhi kastoo aad dareemto wax lagaga caafimaado alaslu qur-aanku wuxuu tilmaamaya alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub ilaahay xuskiisa in qalbigu ku dego nusuus badan oo qur-aan iyo xadiidiba way soo arooreen markaa masaa'il badan oo noocaasiya ka warramaya bitafsiil salliga nebiga ka mida kuwa laakiin waxaan u dan leenno inaan maanta ka hadallo التصبيح فقط تصبيح erayga macnihiisu waxa weeyaan subxaan allah markaad leeday ilaahay baad xumo ka hufaysaabay odhan jireen culamada soomaaliya ama si kale haddaynu u tilmaamno waa tanziihu rabbi can الnaqaa'is waa ilaahay subxaana wa tacaala aad ka nasahayso ka fogaynayso ceeb oo dhan ilaahay uma cuntanta baad leeday waxa naqsiya oo dhamme ilaahay uma cuntamo ilaahay kamaalaadkuunbaa u cuntama alxamdu lilaahi baa markaa ah ilaahay oad kamaalka u sugayso ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy markaa walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun
markii ilaahay ka soo warramay istihzaa ay qur-aanka ku sameeyeen ilaahay kitaabkiisa ku sameeyeen rabbi gaalnimaday ka gaaloobeen waxay xumo sheegayaan ilaahay abuurto waxa ay ka sheegayaan nebigiisii ay waxa ka sheegayaan dadka waxaan ka sheegayo qariibkii iyo dadkii ugu dhawaaya ayaa ilaahay wuxuu leeyahay fi suurati alxujaraat walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk wa ognay baa ilaahay yidhi in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay kugula hadlayaan iyo waxay alle ka sheegayaan ee adiga waxa la rabo fastac bima tu'mar wa'rid 'ala al-mushrikiina inna kafaynaaka al-mustahzi'iin alladhina ilaahay wuxuu soo sifeeyey waxa ay samaynayaan dabeetana waxa la yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk wa ognay in laabtaadu cidhiidhiyoomayso ee fasabbix bixamdi rabbik wa kun min as-saajidiin fasabbix tasbiixso ilaahay xumo ka huf multabisan bixamdi rabbik adigoo ku maraya amase ku dheehaya alle ammaantiisa wa kun min asaajidiin inta sujuudaysa ilaahay fooda dhulka u dhigaysana ka mid noqo culammadu waxay yidhaahdaan maxaa diiqu sadri inta laga warramay loo yidhi fasabbix waxay yidhahdaan huwa tiryaaq waa dawaaun yustashfaa bihi waxa lagu caafimaadaya waxa way markii xanuunka loo sheegay dhibta haysata ayaa ilaahay yidhi sidaa yeel sida nebiga la yidhi yeel bay culammadu leeyihiin waa sida laabtu ku caafimaado walidaalika baa qur-aanka meelo badan waxaa ku soo arooray qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun ama falacallaka taarikun bacdu maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanz aw jaءa macahu malak falacallaka baakhicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yuuminuu bihada alxadiidi asafa aayaad badan baa soo arooray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dadaalka uu diinta u hayay iyo dhibta lagala hor yimi iyo cidhiidhiga uu dareemayo wada tilmaamaya idan waxay culammadu leeyihin cidhiidhigaa waxa lagaga baxaa laabta qofku ay saafi noqotaa qalbigiisa ay طmi'naanku galaa raaxatu اlbaali wanafsi uu ku helaa waa masaa'ilkan ilaahay u tilmaamay subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ama tasbiix ilaahay oo aad u tasbiixsato iyo adigoo inta sujuudsan ama inta tukanaysa ku biira qur-aanka markaa meel kasta ama meelaha ugu badan ee nebiga la farayo in dhibaatooyinkaasi la kulmayaan waxa la farayay ama salaad iyo tasbiix nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiidka saxaabadu ay warinayaan uu ku tilmaamayo idaa xasabahu amrun baadara ila asalaa haddii uu arrin dhib geliyo haddii warwar uu ku dhaco haddii uu wax mashaakila la kulmo baadara ila asalaa baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadduu u degdegi jiray sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya qur-aan tiro badan oo sabir iyo tasbiix sheegaya fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha wamin alleyli fasabbixu adbaara الsujuud fii suurati qaaf fii suurati gaafir ilahay wuxuu leeyahy fasbir ina wacd allahi xaqu wastakfir lidanbik wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar fii suurati tuur ilahay wuxuu leeyahy wasbir lixukmi rabbik fainaka biacyunina wasabbix bixamdi rabbika xiina taquumu wamin alleyli fasabbixu waidbaara الsujuud waidbaara الnujuum fii suurati اlinsaan fasbir lixukmi rabbik walaa tuطic minhum aahima aw kafuura wadkur isma rabbika bukrata waasiila wamin alleyli fasjud lahu wasabbixu leyla طawiila suwarka aynu soo akhrinay oo dhan alla subxaanahu wa tacaala wuxuu nebigiisii moxamed ahaa calayhi الsalaatu wasalaam ugu tilmaamaya waxa uu kala kulmayo dadkaasi inay yihiin wax cidhiidhi gelinaya waxay ku hadlayaan wax xun inuu yahay nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam rabbi wax ka sheegiisa iyo diinta wax ka sheegeeda inuu cidhiidhi dareemi doono dabeetana waxaa loo tilmaamay sabir tasbiixsana ama tuko suwar kalena iyadoo salaada iyo sabirku isku xidhan yihin waاstaciinuu biالصabri wالصalaaة
ilaahay uu ku tilmaamayo waa soo aroortay waxaa kaloo soo arooray nebiyullaahi yuunus dhannuun oo tolkii markuu dhib kala kulmay ka tegay isagoo cadhaysan oo moodayeen inay ilaahay u qabanaysa mufasiriintu tilmaamaan oo dabeetana bad tegey doon fuulay si kastaba ha noqotee isaga sahmiguu ku dhacay doonta ha la khafiifiye la yidhi nebiyullaahi yuunus doonta laga tuuray dabeetana uu cunay ama iltiqaa buu libqiyey nimiri xuut weyl ayaa libqiyey alla wuxuu tilmaamayaa meeshaa cidhiidhiga ah markuu galay waa cidhiidhi halkii u dambaysay baddu marka hore ileen geed la cuskadaanatay haddaad badweynta ku hafato marka hore aanad nolosha laga quustaa haddana haddaad bahal calooshii sii gasho hadaa walba bad ku jiray haddana bahal calooshii aad sii gasho waxaynu odhan karnaa waa meeshii u dambaysay ee nolol lagaga quusan lahaa halkaa markuu galay baa ilaahay yidhi wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi dulumaat mugdiyadaasuu ka dhex dhawaaqay baa ilaahay yidhi muxuu ku dhawaaqaya waxay culammadu yidhahdaan habeen madow oo bad madow oo bahal calooshii uu ku jiro ayuu dhawaaqay oo maxay leeyahay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin wuxuu leeyahy laa ilaaha ilaa anta ilaw keliga ayaa xaq lagu caabudaa subxaanak erayga nuu soconayna waa ka subxaanak rabbow xubaka hufnaanta ceeb adigaan lahayn innii kuntu min aldaalimiin waxa uu qiranayaa qofka muslimkana ay tahay inuu qirto wax kastoo dhiboo ku soo gaadhay waa bisababi dunuubi الnaas waa dadku wuxuu geystay unbay ka ratibmay wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ilaahay addoomihiisa ma dulmiyo bale dembigaa dhibtan lagaaga maydhaya dunuubtaad aakhiro la tegi lahayd adigoo xambaarsan ayaa dunida lagaaga sii jafjafaya saa daraaddeed bu wuxuu nebiyullaahi yuunus leeyahay laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin mashkilad baan ku jiraa laakiin mashkiladda anaa dulmiga sameeyunoo ilaahu adigu wax ma dulmidid buu leeyahy rabbow dulmigu adiga xaggaaga kama imanin ee dhib aan sameeyey unbaa waxa kani igu dhacay ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu qur-aanka ku tilmaamaya in la badbaadiyey maxaa lagu badbaadiyey rabbi baa qur-aanka fii suurati saad inoogu sheegoo leh falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabita fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun falowlaa annahu kaana min almusabbixiin baa ilahay yidhi haddii aanu ka mid ahaan lahayn baa ilaahay yidhi kuwa tasbiixsada intaanu cidhiidhiga gelin iyo markuu cidhiidhiga galayba wuxuu ahaa maxay inta tasbiixsata ee tukata ee subxaan allahda badisa haddii aanu kuwa marka hore ka mid ahayn baa ilaahay leeyay lalabita fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun ilaa yowm albacثiga xagguu ku jiri lahaa yacni ma heleen badbaado muxuu ku badbaaday inuu musabbix ahaa soomaalidu inta badan ama bini aadamku inta badan markay kadantahay alla taqaanaa bay soomaalidu tidhaahdaa had iyo goor bini aadamka markaa dhibtu qabsato ayuu rabbi xasuustaa yaa rabbi markaasu ku yidhaahdaa markuuse badhaadhaha ku jiro sidii rahyi ay sheegayeen buu noqdaa rahay yidhahdeen soomaalidu markuu biyaha galana ma xasuusto waxba marka kalena waa xasuustaa qofka bini aadamkii inta badan labada imtixaan bay yidhahdaan imtixaanka dhibta iyo imtixaanka nicmada adag bay yidhaahdeen waayo imtixaanka dhibta waxay u badantahay bay leedahay rabbi u noqotid inaad baryada badisid inaad cibaadada badisid inaad ilaahay imtixaanka barwaaqada se lama xasuusto xaggee la tegayaa iyo maxaynu cunaynaa iyo xaggee loo dhoofaya halkii laga boodayaa ayaa lagu jiraa idan barwaaqada inta badan lama xasuusto haddaba haddaad kuwii barwaaqada markay ku jiraan rabbi xasuusan jiray tahay kuwii barwaaqada markay ku jiraan tasbiixsan jiray haddaad tahay markay dhibtu ku qabsato ilaahay waa kaa badbaadinaya saa daraaddeed baa nebi yuunus ilaahay wuxuu leeyay falowlaa annahu kaana min almusabbixiin haddii la laayay inaanu ka mid ahayn kuwa tasbiixsada yacni kuwaasuu ka mid yahaye haddii taasi aanay jirin lalabita fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun idan waxaan leenahay cidhiidhiga markaad gasho
عريري الدون أما مد نفسي هذا سيدكي النبي محمد كل عليه الصلاة والسلام اللي يضيق صدرك الوقت المامي أما مد جسدي بها هذا براكتيكاله إن بدي كل قضاء ميل درن كنا على هالنقطة أي مشكلة وقفك قاله وحيابها اللابطة عريري كسارة قفك آنو بوفس كدريمين آدانوه مركو عريري سترس مركو كبطو وابو مسكح قدومه ضد ضد عريري كنتي وقت كيسان كروايان محي واشا أما خفيفة أما إصرافة سترس مركو كبطو إلهي وحولي هذا تصبيح إذا بديسو يطمئن قلبك مشكلة دنا فوق واتكبح حساب بل الرضا نفس عباداتك وقصر ريا وحكم إذا القناعة والرضا نفس إنه قفكوا وحكستوا لكل ما إلهي سبحانه وتعالى ورالك النهضة نلشى أنو عديدي كدريم سادر هذا الله بدر إلهي القرآن كآيات كله سكحلية في سورة الطه إلهي وحليه فاصبر على ما يقولون وحي كهر ليان كصبر بإلهي وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار وايو لعلك ترضى بإلهي وحلين النبي عليه الصلاة والسلام صبر كدمنا وحلين التصبيح ساء أدقوا إلهي ما هد نقيس كل هي